awey haddii idinku awood sheegateen awood Ilaahay baa leh adduunna aad sheegateen de aqliga mali aniguba kaab jaahilkaaba saas wax u fasishay oo u bedeshay annagu laga bilaabo maanta way naga go'an tahay waxaan u ogaanay inaan cidna noo maqnayn ceelna noo qodnayn aan cududeenna ahayn maanta waxay ku jirtaa cududiina ku jirtaa meeshan bac baa jirta bac dawladda waxa la leeyahay makana soo galay makana dhibaato ma wado awalba ma maqnaan dalkiisu joogaa buundaweyn isaga dega hool wadaag iyo aageeda isaga dega kooshin iyo inta ku xeeran isaga dega saddexda halbowle ee magaalada isaga dega meel kasta waa joogaa nabad baan ku joogaa wixiisana si nabadeed buu ilaahay ku raadinaya dawladdu waxa la leeyahay makana soo socdo mudaharaad iyo balaayo ka soo wada halkaasay dawladdu baa ka qaaysa annaga waxa lagu soo tuuray harama cad cid kale looma keenin idinka la idin keenay habeen walba halkala garasuubiska lagu laayay maxay baa soo saxay hogaamiyaashiina soo saxay mid baa idin sheegaya wax kasta waa ka yeela dadkan namiimiye kasta inay soo dhex galo balaayo laakiin nin walaalkay soo dila soo saxay ma jiro horta qabsada ma kano beenta ayaa la idin sheegay ma dawladda kana magacaabo cid idin hogaaminaysay ee ama dawladda idinku jirtay cid walaalkay soo dil soo saxday ma jirto dawlad kugu soo socota oo duulimaad kugu soo ma jirto cid kasta oo meesha la keenay iyaga u taala waa maamulkii hay'adkii dawladnimo annagu ilaa hadda wax dambiya iyo wax qalad oo aanu galay ma jirto xuquuqdeedaan rabnaa ciidan ka aaba yeelin ma jirto sidaa darteed wuxuu gaalalay nin loo jiray gaalalay arinta ku daro Djibouti buu joogo dadna isagoo hordhan wax ka cunaya ayaa wuxuu arkay laba bisadood agtiisa isku laayay waa bisad madow iyo bisad cad tii cadayd baa la dilay fargeetadii wax ku cunayay buu meelaad buu ku dhuftay gig bisadii baa tiri gaalkii Faransiiska meesha fadhiya bisadii cadayd marka laadka lagu dhuftay isna taw soo yidho tii madow buu ku dhuftay uu ka daba tago fargeetadii buu halkaa ka geliyay balaq gaalkii dil baa ninkii lagu xukumay nimay isku reeriyiin baa meesha jooga leendana yar buu dhiibay wuxuu marka baasha lagu anki siiga lagu galiyay leendana tii wadada marka dawadii lagu muday ayuu calaaliyay 6 saacadood qaybkii waa 6 nin timekii dhimasho markii gaadha loo tagay waa soo fadhiyaaba hadhow baa la ninka waa laga gardaraayo waa la sii daayay hargeyso orodkii ku tagay wuu baxay wuxuu wariyaa waa la taariibayna meel kale maray waa laga diiday in yar buu soo shaqeeyo waa la soo taariibiyay hadana hargeyso ku soo noqday dukaan yar buu furtay kuwii shalay diiday baa ka daba raray dukaankiisa waxba ka iibsan waayeen dacaayadna waddanka way u geliyeen maxamed ibraahim baa la rujinay Allah u naxariistay qori buu soo qaatay kaarabino shan xabba ku jirto kii koowaad buu ku qabtay dim uu la dhacay kii labaad buu ku qabtay dhash way ka tibtay dim labu ku dilay halkaas kii saddexaad buu dilay afar xabba ka dhacay xabadii ugu dambeysay ayaa ninkii uu la doonay uu ku qabtay uu ku riday sidaa markuu ugu riday buu la waayay saas oo waayay waa nasiib buu doqonimaas ku jirtay waa kii uu doonay inuu dilo waxa gaalalaay waxa kelmadda ugu dan lahayd wuxuu yiri hebel baan doonay inaan dilo isagana inta waxaan bal ha ku raaxaystaan yacni si arka sakaraadka iyo xanuunka baasha haddaan marka hore isaga ugu horreysay la miiga fakan la waa maya waa nasiib buu doqonimaas ku jirta in adeertan maanta inaga isdhignay waa nasiibkeena doqonimaa ku jirta makane wuxuu ilaahay diidaad ogolaatay wuxuu ilaahay diiday hadda bidii sheegayaa واي محمد مسلم هو لا اله الا الله كذا مسلم هو الهي دول مجديد بول مر والبديد الا لو سمينا ديد الا سميسنا ديد تيبا قالتين لو دulmiyo oo waliba ku qanacsan tahay oo kii cid ku xigay lagu soo adeegsanaya oo tan maanta anaga dhexdeeda ka socota